markaana waxay ka taataabano qaybaha islaamu u kala baxaan dabeecadaha ilaahay baa dabeecada wanaagsan baxsha qofka marka waxa loo baahan yahay dabeecada xun iyo dabeecada fiican labadaba markaad kala aragto qof dhameystiran horta ma jiro qofba cilad buu leeyahay marka waxa loo baahan yahay cilada aad leedahay inaad ciladaad ogtay horta waa shay muhiim ah qofka cilada u leeyahay og dadka waxba u dheeriya laakiin hadda inta beelowtaada is ogeyn ama aad tuugtooda is ogeyn oo inta waxaad dhibkeeda leedahay marka gabdhaha Soomaaliyeed maanta waxaan leeyahay walaalayaal qaybahan loo qaybiyay inay dumarku u qaybsamaan ama gabdhuhu u qaybsamaan oo dabeecad ahaan calasha marka laga hadlayo gabar walba inta iska fiirisid dabeecadaas xun iska go toddoba qaybood baa loo qaybshay gabdhihii in badan baan gabdhaheena reer Columbus aroosada maartay mujaajilaad ka sheegsaganaa laakiin maadaama hadda aan helay maartay media gaarsiinaysa dadkii kalena waa loo baahan wax xun in la isu sheego marka gabdhuhu waxay u qaybsamaan toddoba la yiri afar ilmo taagood baa la dhahaa waa aftaag iyo gacantaag iyo lugtaag iyo iltaag midna waxa la meera midna waxa la yiraahdaa riima midda ugu fiican waa dhamo way dhameystiranta afarta ilmo taagood marka daan sharxo Soomaali kulay waa la yiri laakiin Soomaaliga hala barto si aad u fahamtiin waxa macnahooda iltaag waxa la yiraahdaa naagta aan qanaaco ku lahayn waxa Ilaahay siiyay waxay fiiraysaa dadka kale waxa haystaan waxay fiiraysaa reerka dariska la waxa haystaan waxa laga yaabaa iyadoo alaab qaali u taalo ama ninkeedu nin fiican oo keenayahay inuu soo muuqaalo iltaag maarta faarax marka aad alaab wada hebla alaabta loo dhigay maaragt Allah ilaahay rabbiga taasoo kale igsi ilaahay yaa ninkaas kan ninkeedii baan u muuqan gurigeedii baan u muuqan wax haysto uma muuqdaan ilaahay horta waa dabeecadna naga gooy marka gabadhi iltaag dabeecada hadaa leedahay laga bilaabo maanta iska goo waxa xun waa iska reebaa waxa ku soo aftaag afraad soo careysanta wax dilay ma taqaan jinatun bay leedahay toddobarin waa qosay toddobarin waa careysanta marka hadaa aftaag tahay hada maxaa la yiri a cheerful wife is the joy of life gabadha farxaanada ah waa nolosha farxad waa reerka farxadiis islaamkuna muxuu nafaray dalaaqatul wajiga isu furaa la yiri wajiga isu fur maxaa laga wadaa waji masbuuc hadaata masbacbuus hadaata qofku arkaba ina adigu hooyada abidisha waa qalaaga carriya gaalada hadda waatan ku dhaxnoolay ama ha ku yaqaan ama ku hay saytaayna ku dhan waa afay bartay waayo bidaankun isu farxo oo qofka ka hor yimaado waji farxad al ku qaabish waa loo baahan islaamkana waaba nafarayaa in wajiga la isu furo oo salaanta faafiya nabi cali sallallahu alayhi wasallam wuxuu heshiine qofka taqaan imaado qol labada salaamo salaanti waxa soo galaysa marka farxadii wajiga ah Soomaaliya ma kala subin waxay yiraahdaan guri lama gala waji baa la gala hadaa maanta ogahay gabar bashaashado fiican oo qalbi furan oo markii maartay aad u timaado aan ku dhibsanaynin oo maartay aan ka caruurin wad ku farxaysaa la sheekaysigeedii ku laaxshada wad xiisaynaysaa laakiin markii aftaag tahay marka hore way soo galay Soomaaliya waxa kale oo yiraahdaan gafuur hameenimo ninkii buuru dhibaa kan maalmeedna ninkii dhugta maalinka dad careysanta gafuurka taagtid wuxuu dhibaya qofkii ku fiiriyo arka laakiin hadaa ciidaba ku fiirin si lagu arko adagta hameen hadaa afku burtin hadiyaabka ugu weeytaa ka sii daranta marka gabadha aftaag liiraahdo waa laga fiican yahay gabar careysan hooyo careysan iska daa hadaa markii cilmigan psychology la fiiriyo waxa la murqaha wajiga ku jira leeyahay qofku markuu farxana intaas oo muruq baa kala baxaysa marka uu caroodan intaas oo muruq isku soo kaduudmaysa marka xataa caafimaad ahaan carada kuma fiicna islaam ahaan diin ahaan kuma fiicna dhaqan ahaan kuma fiicna marka gabadhi aftaag dhaqankeedu ahaay laga bilaabo hadda iska gooyo inaad farxado isku jirkaaga bar iyo qalbigaaga mid kale waa gacanta ka soo horeysa hatta adag hadii hada isla dhaafaan farajinka nash awlaha jig haday baadiyaha joogto neefka jaban qash u shay halgaada ka soo horeysa taasna hadda marka wadanka aan joogno waa la isku xirayaa dad ninka disho oo ku dhufto ama ilmaha adogo saddex number baa lagu taabana dhownaada jil aadays marka dad gacantaag tahayna iska daa looma baahna mana fiicna dilku waa waxun hatta qofka meel qaab daran baad ku dhufanaysaa hatta qofka xanaaq amarkii ku jirin baad ka keenaysaa qofka ka xoog badan intuu ka xanaaqo ku garaacaya odagu haduu ka xoog badan yahay markaad farjir ku dhufato kuma deynay markaas uu kaaga siin marka taadnaa waan ugu yeeri markaas asna la xiri reerkii ma burburi balay halka ka bilaabanaysa hadda gacantaag hadaa taayna ma fiicna dabeecad xun weel iska gooyo waxa ku soo harinaagtay lugtaag 24 waa hurdaaba meel ay caaw alla ka soo toostay lama og markaas reerahoodu halka ku baabaan ilmaha waa laga yaqaan ayagoo duuf loo aan quraac soo cunba iskuuladii dugsiyada aadaan odageedu gaajo ku kalaha
wuxuu noqdaa kuwa maqaaday meelahaas meeraysta ila lugtaag baa guriga u fadhida ayana waa dabeecad xun iska daay walaalayaal naag lugtaag wax badan baa dhaafay waxay ogtahay malaha reer wax kama oga caruur wax kama oga dadka hadda qurbaha joogan waa loo batay runtii weer hoos baamin ka soo shaqeynaysa ama aroos ba ku soo dhafraysa subax hadda maxay kacdaaba ila balaa xal dhinaceersanaysa marka gabadhu waa gabadha gurigeeda joogto oo fadhida gurigeedan gaajo looga dhimane lugtaagay martidiina waa kugu gablantay caruurtii waa kugu gablantay odaygu waa kugu gablamay lugtaagay sida isku dhaan hurdada ka kacadna afarta ilmo taagood baa la dhahaa waxaa shanaysa reema arinta riin waxaa leedahay qofka markuu jiran codka ka soo baxa maxaa laan seexda halkaas ay daniiga taaganta naftaasa ay haysa haddaad taleefon ku soo wacdo haya ii wala faadam saad markaas waa codkaaga inay qof jiran yahay la moodaayo ma walba waayaa basariirtaasaan iska saarnaayo cabaar haddaa hadalka usii wadala jiraruna ma ahane way kaa war badanta haddaa hay arooska xale ma maqasha ama hawsha haye maxaa la yiri markaas soo fariisanaysaa ilaa waa riimo jiradu runka ma ahane midda kale maxay Soomaalidu tirin hadi waqti badan iyo baahi badan iyo bariyo badan waa isku nacaa ninkan Soomaalidu odol nooshahay naagtiisu waa fiyooda marka jiradaadu badato maalba waa jiran aad ku hayso meel baa ku hayso marka dameer wuxuu gaariyo koolkaaga inkiro iga tagtay hadda isbitaal u socotaay hadda dhinaca kale aan fiirin medical abuse way noqonaysaa hadda medicalka maalba isbitaal jira aan jira ugu sii socoto ina dhibkeeda leedahay marka hadda riimo tahay jirada badan ma fiicna ilaahayna bilo laga ma bariyo iska daareenka caafimaad isu yeel jirka firfircoon gali xataa jirada qofkan kula nool inaa waxa la marba gabar jagjag ah oo aan jirin oo ordays inaan noqoto raba ninkan bini'aadam bulshada iska soo doorteen shaqado fiyo Soomaa hada marka bugta ka bixi weedo subax dambe wuxuu leeyahay wallahi islaantan jira ka bixi weedo saan yeel ma naqaano maalinka dambe wuxuu leeyahay saddexdaad iga hoo isagoo waxyaalo ka xataa kugu soo gabanay laakiin ay sal u tahay riimidaada badan iyo rafaadkaaga badan marka waxaan leeyahay gabadha riimo la dhaho adna riimida iska daa waxa ku soo haray meera aba loo badan yahay hadda meera waxa la dhahaa saakay baxday caaw soo yeynaysa haday baadiyaha joogto gurigeeda waa iska yaqaan waxa raarsada caruurta koota ku ciyaarta ilaa waa guri laga maqayo yaa kule haday magaalada joogto ciyaalka game ku ciyaar dad guriga soo gasho biil bararka tuuran iyo koobka tuuran iyo kabta tuuran ciyaalka isdaba mariyo xaafada oo halkaas mid walba wuxuu rabaa intuu cuntada ka cunay weelka xagga lagu tuuro waad yaabaysaa maxaana la yirin gabadhan baa hooyada la ballamaysay markii gabadheedu guursatay waxay tiri hooyo ninkaad aad guursatay batin Soomaali nin bini aadan weyd gabadhaas waliba Soomaali ma ahayn waxay tiri hooyo maalintii ishiisay tahmiinkiina sankiisa macnaha maalinkii gurigoo hagaagsan adigoo wada qurxoon haydan arkay tiri hameenkiina waxay tahay adigoo carfoon gurigoo carfoon meel carfoon seexi bay tiri hadda halka maxaa meeraha hadday tahay goorma carfinaysaa waaba ka maqan tahay Soomaa gaasuu ku kufaaya beena bararkii ciyaaladu ka tageen la ciyaalka xaafada carad u sareeyeen marka meeray adna waxaan ku leenahay guriga ku xasil oo dan inaad u baxaysa mooye iska daa wareega meera waa la nacay naftaa dadkii qabatay sida isku dhaan waxaa ku soo hartay gabadheeda dhammo waa qof dhameystiran waqtiin dhammo waa qof dhameystiran ma wareegto ma jira badna maxaan ku raama seexato lugtaag ma ahan ma caraysno aftaag ma ahan iltaag ma oo dariska ma fiiriso ilaahay subxaanahu wa ta'aala gacantaag ma dad waxba disho waa gabar dhameystiran oo murwa ah hadda waxa jira maamaha kala dhahaysa naag kasta murwa ma ah ya every woman is not a lady lady waxa dhaa murwa gabadha murwada ah marka gabdhaheena waxaan filayaa gabdhaha Soomaaliya waxaan leeyahay murwooyin noqda kuwa hooyooyinkood ku dayda noqda kuwa ku samra dhibka noqda kuwa ilaahay subxaanahu wa ta'aala inta ka cabsada guryahooda ku maamula sida ilaahay yiri noqda Soomaaliya waxay tiraa gaangaambiya guri waa haween hooyadu haday hooyo fiican tahay ninka xataa kala daadsanantiisa lama arko hadduu loo haray yahay xataa lama arko waana maamaha kale waxay dhahaysaa kabana jabto iyo jabana waxa la yiri jabane kabto iyo kabana jabiso naag walbadaas kabana jabto mid miskiin oo kala daadsan oo loo har ah bay heshaa markaas ay u jafjafayso oo wax walba u qarnayso waxay ka soo saartaa ninka dadka ugu fiican taasi marka nin kala jabnaa way soo arursaa midna maxay noqotaa mid asagu arursana oo shaqeysanayo oo nin karmeed ah oo ordayay ayay kala tuurtaa hadda waayna waxa arkaysaa kuwa abaay hadduu xoolo tabcado naa kala guursanaya marka suusan naa u guursanin waana xoolaha kala tuur kaasay maalba aqalka bedel daaha bedel hebelo gadde xaga ku tuur hadda maxaa ka taqaan laag waxa la yiri naag dhil xunay adna ku muruglid hadda waxa weeye hadii adigu aad wixii kala tuurtay abaartu adii reerkaaga soo socota
waxaadna ilowda qadarkii rabbiyo ninkan hadduu guursan lahaa kuley waa guursanaya taasna meesha ku dar marka ereyga nimanka naagaha guursan kaba hadli maayo gabdho ugu naceen laakiin waxaan leeyahay walaalayaalow markaad wax kala tuurta adiga ku soo noqonaysaaye gabadha muslimada oo wanaagsan ha noqoto gabdhihii loogu tala diintu sheeka ma gabdhaheena saxaabiyaadka oo xagga diinta ama hooyooyinkeena dhaqankeena wax ku soo koriyeen maxay dhaan hooyooyinkeena naagan dhabteeda ilma buuxin dhalaan ma korsan halshaan maxay ka wadaan ciilka aad soo maraysid ninku ha ku xumeeyo dumaashaha lagaa dhigo dadka ka guurista ha ku dhibeen laakiin in Allah ma asaabirin gabadha samirta unbaa wax korsata maanta laakiin waxay noqotay opposite bay noqotay mabal isla sugayaba waxa laga yaabaa ninkii oo soo maanta shaqo ugu maqnaa oo rafaadsan inay gabadhii tiraahdo haye aaba xagee soo maraysaa halkaas calan lay ku leexo ama bardaas boqodo noo soo qabo waayahay ninku muxuu u guursaday gabadha wiilka reerka wuxuu u dhistay inuu ku nasto cuntada loo kariyo dharka loo dhaqo oo uu helo nolosha nolol ka gadisan ilaan guurka waa xasilooni baan irsama laakiin marka sheekadu u bedesho qadad maqaad ka soo qaad waaba la sheegay sheeko Ingiriis ka dhacday gabadh wiil guursaday oo 6 bilood markuu qada soo gaday maalin kasta oo maalin dab u yeero xir walaali anigu waxaan ku guursaday inaan maqaada ka reysto laakiin hadda waxaan ba arkay wiil sheekada in double noqoto hadda laba qadaan bixiyaa wiil marka intaada caruur dhalin oo reer dhan oo maqaad looga adeegayo dhibkeeda leedahay aysan ugu badan sheekadu waa kala tageynaa wiil marka maxaa ka ceeb badan gabdhayo waxa yeeshin khayr Allah siiye waxaas u walaaqdan bareerka ku filan hatta hadaad wax karinta aqoon gabdhaha yaryarku hadda joog wax ma kariyo yaqaanin baa lagu ceebaya laakiin dhib ma lahayn naabar isla kariya hatta asla walaaqatiin taas loo baahan yahay marka waxaan leenahay gabdhaheena Soomaaliyeed oo qurbaha jooga waliba noqda hooyooyinkood waxa wax ku soo korin wax ku koriyo noqda hooyo samirta noqda hooyo ceebta qarisa noqda hooyo labada reer isku wada gabar baa waxay guursanaysaa nin hebel la yiraahdo jaamacada ka soo baxay oo halka shaqaysanaya kaasay leedahay hooyadii ma rabo oo walaashi ma rabo oo reerkiisa ma rabo hadda waxaan aqal xumadooda kaga yaabay ninkan wixii wax soo baray oo intaas soo la ekisi ilaa beer u baxayso ahaaye maalinku reer tabcaday waxay sugayeen barwaaqo ka sii badan helaan naag reerka soo dhaweys inay helaan ayana marka ma ogay laakiin inkaar baa gabadha saas yeeshay inkaar baa ku dhacda iyadii awlaadeedana ku soo noqota inkaartaas ninkan waxaad ogaataa inuu ka yimid dad adigu inta leedahay hooyaad leedahay hooyu leey walaal baad leedahay walaal buu leey aabbaad leedahay aabbu leey gabadha fiican waliba laba reer inta isku wado bay waliba reerka xididkada u roonaata waayadaa wixii gacanta ku haya reerka xididka aday marti ku yihiin ninku adu marti ku yahay marka waxa loo baahan walaalayaalo waxyaalaha dhacay waan 10 noo noqda kanada ay ka dhacday baa iibir sheekadaas sheeko yar gabar baa waxa la yiri waxa uu sadohdeed kaasay waxa tiri ma dhacayso in ila noolaato islaanta anu guri ka heshiin masaasaha nin fiican oo fariid u ahaa wiilka gabadha qabay wuu ka xiyay hooyadiis guriga u kireeyay halkaas u dajiyay ayada markaa waxa qabtaan ay guul gaartay madda sadohdeed ceyrisay hadda waxa la yiri ilaahay subhanahu wa ta'ala xaq waa og yahay maalinka dambe hooyada timid habeenkii markay hooyada timid subaxii ma hooyadana lama joogayso yiri ma hooyada ha waa soo waalatay hooyada wada la joogaysa wala ma waalan bil guriga hadaan leen hooyada ma joogayso yiri ma ogeyn hooyada shil ceyris waa ilowd hadii ban meesha waxa dhacday gabartii tir hooyana keen anigu maanta wixii hooyada guriga joogi mees ha gacantay qabsat nabaday buu magaalada waa suuq shakadii ka shimkaas ale waninkii hebel sadohdiis buu guriga ka ceyriyo kaasa gogol loo dhigto leeyahay hebel maxaa kugu dhacay maanta sadohda aad ceyriso wuxuu yiri gabadhan u yeero oo shalay hooyada bay ceyriso yiri oo inta ila noolaan mees wata guriga aan u kireeyay oo ku biila aan tabarteeda ahayn marka hadii maanta hooyada ay timid anna waxaan tusayay buu yiri hooyada xanuunkeeda tusayay anu sadohda ma garan waayeen inaan ceyrin laakiin xanuunkan tusayay hadda ayadii baan marka meeshii lagu ceebeeyo leeyo alla ku ceebeeyay in kaar kugu dhacday waadna ceebeys alla wuxuu qadaray in hooyadii la soo celiyay labadii hooyo gurigii la wada keenay halka labadii hooyo iyo reerkii barwaaqo ku noolaayeen marka gabadha Soomaaliyeed waxaan ku leeyahay ninkan quruxda badan oo guursanaysid dad baa ku soo tabcay dad baa cidiyaha ku soo murxeen naaga canjeelada ugu duwendhigu ku madoobaadeen alla inta ka cabsataan waxaygii waxaaga aan cunug waali soo ma aha yiri hadhiina isku darsada ee labada reer ha kugu reyso gabadhaas duco qaadata gabadhaas noqoto midii barwaaqowda oo walaas ciida dhashay laakiin hadaa tiraahdo aabiisna ma rabo adigana waa ku rabaa aqli ma aha midada kaleeto waxa la yiri nin maalin ma gaadid ninna sanad ma gaadin ninna waliga ma gaadin nin maalin ma gaartid baa la yiri oo ninka gaadiidkaas waa gor dadku sida hadda fasiliska la salama haysanin markii meel lagu shiraayo geed halkaas magac la lagu shiri jiray marka waa in faras la soo fuuro marka ninka faras kale maalinka uu ka horeeyo adigu aad soo lugeynayso ninka xoolihiisu naqa ka hordagaana
sanadka uu ka horeeya ila naqiba xoolihiis ka hor degan waa ka hor daaqeen ninna weliga ma gaarid baa ninka ka naag fiican waxaad ogaataan gabadha fiican waxa weeye waa wax